إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan jecelahay halkan inaan guud ahaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya magaca dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii eheladii iyo qaraabadii waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkii 2 toddobaad kadib xanuunka badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho shalay galabtii ka dhacay halka aan hadda taagannahay ee abartamaha magaalada Muqdisho ama hotelka Naasahab Lootu ee magaalada Muqdisho ma ahan weerarkii ugu horeeyay inta aad ka warqabtaan ma ahayn waxay shacbiga Soomaaliyeed sugayeen mar kale inay arkaan 2 toddobaad kadib weerarkii ka dhacay halkii loo yaqaanay Soobe maalintii madoobeyd 14 bishii Oktoobar 2017 mar kale in ay shacbiga Soomaaliyeed fursad u siin doonaan kooxaha arxan laawayaasha ah ee duulaanka ku aqarannimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaad arkaysaan saakayna marqaati ka tihiin shalay markii uu bilowday hawlgalkan isaga ah wuxuu soo gabagaboobay saacadu markii ay ahayd 3 habeenimo iyo rubi ama 15 daqiiqo qof kasta sida uu yaqaano waxaan wadnaa wixii aan heli karnay daawacyada iyo dhimashadu ay ka soo gaartay weerarkaas isaga ah ma hayno tiro rasmi ah dadka ay waxyeeladu soo gaartay inta aad la socotaan mar haddii aad tihiin laamaha madaxa bannaan iyo warbaahinta ka socota adduunka inteeda kale waxay arxan laawayaasha duulaanka ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaasna xalaaleystay dhiigga shacbiga Soomaaliyeed beegsadaan goobaha ay dadka rayidka ah iyo ganacsiga ku leeyihiin waxaan rajaynayaa in shacbiga Soomaaliyeed ay joogaan waqtigii munaasabka ahaa oo ay la dagaalami lahaayeen arxan laawayaashan iyaga ah waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa tacsi inaan la wadaagayno xubnihii qoys qaaliga ahaa ee qoysaskooda ku waayay dhacdadan iyada ah warbaahintuna waa mahadsan tahay waxaad arkaysaan hawsha ka soconaysa ee aan wadno ee ah sidii aan u badbaadin lahayn hadiiba ay jiraan wax nool wixii halkan ka dhacay aad iyo aad ayaan mahadsantahay tirada kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen 5 arxan laawayaal ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab 2 ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan ee meedadkooda ay yaalaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay 3na waxay ku jiraan gacanta ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya badbaadintu waa socotay ilaa shalay dadka aan badbaadinay waa dad fara badan iyagana idinkaana fursad u heli doona inay markooda la hadlaan warbaahinta tiro dad Soomaaliyeed ayaa ku jiray meesha wixii musiibadu ay ku dhacday maaha intii kale waa badbaadin waxaan jecelahay hadalkaas isaga warbaahintu waxay ku dadaalaysaa inay ogaato tirada rasmiga ah ee dhimatay laakiin dib ayaan idinkaga soo sheegaynaa waxaad ogtihiin waxay dawladda Soomaaliya marka lagu daro wasaaradda amniga iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya la tacaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen guud ahaan amniga guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan hawsha ballaaran ee ka socota magaalada Muqdisho